hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa ku dhawaaqay in uu fashilmay qorshihii Kenya ay darbiga kaga dhisaysay xadka ay la wadaagto Somaliya. aadan barre ducaale gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya oo socdaal ku tagay ismaamulka Mandera ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu fashilmay darbiga dawladda Kenya ay doonayso inay ka dhisto xadka ay la wadaagto Somaliya. waxaana uu ugu baaqay xisaabiyaha guud ee dalka Kenya in ilgaar ah uu ku eego lacagaha uu sheegay in lagu loonsaday darbigaasi. darbiga la sheegay beenbada waxa kama jiro lacagaha lagu cunaaya waa saddex imaan doona. darbiga siriga la dhisay waxa leeyahay 3 bilyan baa lagu xulay. musuqmaasuq hadii la dagaali darbigan hadda ninka xisaabaha dawladda ilaalinay waxa lagu yiri darbiga hada soo fiiriso meesha waa meel khatar ah isku tagi. dhanka kale xildhibaanad Raxiima oo laga soo doorto deegaanka Isiolo ayaa waxa ay ugu baaqday dawladda Kenya si ay uga guuleysato al-shabaab inay maalgeliso ciidamada sirdoonka isla markaana aysan suuragal ahayn in dad wada dhashay derbi la dhex dhigo. Sisi tunataka security between Somalia na Mandera enhanced through security civilians. Wafanye security intelligence. dhawaan waxaa soo baxday warbixin ku saabsan in darbiga dawladda Kenya ay ka dhisayso xadka ay la wadaagto Somaliya lagu cunay lacag dhan 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana darbigaasi la dhisay wax ka yar 12 kiiloomitir. odayaasha iyo isimada gobolka Sanaag ee ku shirsan magaalada Cerigabo ee gobolka Sanaag ayaa habbeeleed ahaan waxay xilligan ugu heshiiyeen in lagu dhameeyo xiisada ka alowsan deegaanka Yube oo u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Somaliland. shirkan oo warbaahinta aan la wadaagin qodobada looga doodayo haddana waxa ay soo horfaristay waxgarad iyo isimo ka soo kala jeeda beelaha galbeedka iyo bariga gobolka Sanaag waxaana lagu go'aaminaya in ciidamada Somaliland ee u dhashay galbeedka Cerigabo ay ka baxaan degmada Yube sida warbaahinta ay u xaqiijinayaan xubno goobjoog ka ah shirkaasi. isimada dhaqanka ee ka socda bariga gobolka Sanaag ayaa shirka ka cadeeyay in aysan raali ka ahayn joogitaanka cutubyo ka tirsan ciidamada Somaliland ee u dhashay beesha dhexe kuwaas oo fadhiisama kula xilligan nagagarka degmada Yube ee gobolka Sanaag. taa badalkeedana waxay ogolaadeen in cid walba u dhalatay bariga gobolka Sanaag ay imaan karto iyadoo aan loo eegin calanka ay wadato iyo maamulka ay ka soo jeedo midna. waxgaradka iyo isimada labada dhinac ayaa qodobada ay ku heshiiyeen u bandhigay taliyaha ciidamada Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani isagoo qoraalkiisa waxgaradka iyo isimadana u qaaday dhanka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi si uu jawaab uga helo. nuxurka qoraalkan ay soo jeediyeen in ciidamada Somaliland ee aan u dhalan bariga gobolka Sanaag ay ka baxaan degmada Yube iyo tuulooyinka hoostaga waxaana hadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ogolaado ay ka baaqan kartaa arrinkaasi dagaal dhexmaran Puntland Somaliland. ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa waqtigan labada dhinac waxay isku horfadhiyaan deegaanka Yube oo dhanka bari ka xiga magaalada Cerigabo ee gobolka Sanaag waxaana ay joogaan meel isu muuqata taasoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in ay dagaalamaan ciidamadaasi.